السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام دمان خيارته maanta waxaan ka hadli doonaa Fibonacci retracement. Fibonacci retracement waa reward ratio sheegta psychology ahaan halka laga soo noqonayo retracement ama dib u soo noqoshada si halkaas looga sii raaco ama maaragtay halka looga galo. Marka waa tool runaantii aad u saacido oo dadka traders-ku ay aad u isticmaalaan weeyaan ama aad caan u ah weeyaan oo loo isticmaalo as a technically analyze ahaan oo loo isticmaalo weeyaan. waxyaabaha badanka loo isticmaalo waxaa kamid ah support iyo resistance ayaa lagu helaa. sidoo kale waxaa lagu helaa harmonic patterns-ka. waxa kale oo in badan dadka ka saacida meelaha la dhiganayo price target-ka ama take profit-ka iyo stop loss-ka. waxaa soo saaray nin magaciisa ama full name-kiisa la yiraahdo Leonardo Pisano Bigalo oo Italian mathematics ah. tool-kan isaga reward ratio soo saaray isagana loogu magac daray Fibonacci retracement ama tool-kan run ahaantiina maaha mataqaanaa tool ama wax isaga oo kaliya lagu geli karo suuqa waa confirmation. marka sidoo u shaqeeyaa waxa weeyaan waxa yiraahdaa waa lambaro series ah oo la isku daray ama la isku geeyay. tusaale ahaan hadii 0 aan mataqaanaa hal hadii loo geeyo hadii 0 hal loo geeyo ayaa ka dhalanaya. hadii hal loo geeyana 2 ka dhalanaya. hadii hal laba loo geeyana 3 baa ka dhalanaya. hadii 3 laba loo geeyana 5 baa ka dhalanaysa. 5 iyo 3 isku geey maxaa ka dhalanaya 8 baa ka dhalanaya. 8 baa ka dhalanaysa. 8 ayaa ka dhalanaysa. hadii 5 iyo 8 isku geey maxaa ka dhalanaya 13 baa ka dhalanaya. hadii 13 8 loo geeyo maxaa ka dhalanaya 21 baa ka dhalanaya. 21 ayaa ka dhalanaya. 21 hadii 13 loo geeyana 34 baa ka dhalanaysa. 34 hadii 21 loo geeyana 55 ayaa ka dhalanaysa. 34 hadii 55 loo geeyana maxaa ka dhalanaya 89. 55 hadii 89 ka loo geeyana 144 baa ka dhalanaysa ilaa iyo sida uu socdo weeyaan. marka sidaas uu shaqeeyaa. marka lambarada aan halka ku soo xusnay ama reward ratio ama halka laga soo noqonayo ee kala ah 23.6% iyo 38.2% iyo 50% iyo 61% iyo 100% waa lambaradan oo la isku geeyay ama la isku qaybiyay baan u jeedaa lambaradan marka la isku qaybiyo ayaa lambarada soo baxaya. tusaale ahaan imika hadii numberkan 618 ka aan soo qaadano 618 ka hadii aan soo qaadano hadii 5 loo qaybiyo 89 waxay soo baxaysaa 0.6179. marka halkaas ayaa laga soo qaatay. lambarkan kale 38 ka hadii aan soo qaadano isagu marka la isku qaybiyo 5 iyo 144 ayaa waxa soo baxaya 38 0.38 19 ayuu soo baxaya. lambarkan 23 ka hadii aan soo qaadana 8 marka 34 loo qaybiyo ayaa waxay soo baxaysaa 0.2352. hadii aad haysato calculator-na waad isku qaybin kartaa. marka sidaas ayuu shaqeeyaa. hadii aan kugu daro in yaro aad u muhiim ah lambarkan isagu 50% isagu kuma jirin. marka isaga waxa loogu soo daray 50% dadka ayaa inta badan jecel ama hadii taa mataqaana hadii qiimo dhimis la sameeyo waxa aad dadku u gataan ama 50% wax walba dadka ayaa 50% aad uga hela. marka 150 kuma jiro isagu reward ratio-da. marka isaga waa lagu soo daray. marka sida loo sawiro ayaynu gali doonaa. waxaan inaga tiro kuwan sida loo sawiro tool-ka halkan laga soo baxaa daaqada saddexaad buu ku jiraa waa kan fib ay ku qoran retracement. marka waxa loo sawiraa haduu suuqu mataqaanay hoos u socdo kor ayaa laga soo sawiraa. haduu hoos u socdo kor ayaa laga soo sawiraa oo mataqaanaa korkaas ayaa sida halkaas la leeyahay la soo jiidaa ka bacdina hoos ayaa la keenaa. marka inagu waxaynu doonaynaa ama aynu ilaashanaynaa saddexdan lambar 61 ka iyo 50 ga
iyo 38 saddexda lambar ayaan ilaashanaynaa. saddexda lambarba uu ka soo noqon karaa, waliba wuxuu aad uga soo noqon karaa 50 ayuu aad uga soo noqon karaa. marka waxaad ilaashanaysaa waa saddexda lambar, halkaas ayuu ka soo noqon karaa. waxa kale oo uu ka soo noqon karaa 61 ayuu ka soo noqon karaa. 61 ayuu ka soo noqon karaa. sidoo kale waxa uu ka soo noqon karaa 38 ayuu ka soo noqon karaa. 38 ayuu ka soo noqon karaa. marka haddii uu suuqu down trend yahayna sidaas ayaa loo sawiraa. haddii uu up trend yahayna iyadana isla eegna. haddii uu up trend yahayna sidan ayaa loo sawiraa. haddii up trend yahayna sidan ayaa loo sawiraa. so waa kan isagana hoos ayaa lagaga soo qabtaa, kor ayaa la geeyaa halka u sareysa, swing low ilaa swing high. haddii uu down trend yahayna maxaan ku yiri, haddii uu down trend yahayna sidan halkan sorry down trend yahayna sidan ayaa soo qaban. kor ayaad kaga soo qaban ilaa iyo waxaad keeni hoos baad keeni. halkuu ka noqon karaa 50 ayuu ka noqon karaa. 50 ayuu ka noqon karaa. saddexda adigu mar walba saddexda lambar ayaad ilaashanaysaa. saddexda lambarba uu ka noqon karaa. marka maaha wax saa u sii adag maaha, ama wax saa u sii weyn maaha. waa wax aad iyo aad u fudud, waana wax run ahaantii la baran karo weeyaan. ma fahamtay? marka damoor anigu haddii aan 9 jeer maanta aan ku celiyo, waxa kaaga muhiimsan ama kaaga faa'iido badan adigoo 2 jeer isku day hataan anigu 9 jeer ku celiyo. adigoo 2 jeer adigu practically sameeya ayaa kaaga faa'iido badan. marka aan ku celiyo, hadduu suuqu down trend yahay kor ayaad ka soo sawiraysaa baan ku dhahay. hadduu suuqu down trend yahay kor ayaad ka soo sawiraysaa. haddii uu up trend yahayna kor ayaad ka soo sawiraysaa. haddii uu down trend yahayna hoos ayaad ka bilaabaysaa. tusaale ahaan suuqani waa down trend, kor ayaad kaga soo qabanaysaa, hoos ayaad geynaysaa. kanna waa up trend, kor ayaad kaga soo qabanaysaa, hoos ayaad ka soo qabanaysaa ujeeda, sorry, kor ayaad geynaysaa. waa kan. marka lambaradii uu ka noqon karayay waxaan u maleynayaa inaad arkayso lambarada uu ka noqon karo. wuxuu ka noqon karaa 61 50 iyo 38 saddexdaaba waa lagu ilaashadaa qiimaha. bal aan isla eegno isagoo real chart ah. aan isla eegno isagoo real ah. haddii uu suuqa up trend yahay maxaa la sameynaya? hoos ayaa laga qabanayay ilaa iyo maxaa la geynayay halka u sareysa ayaa la geynayay. marka halkaa u fiirso, halkuu ka noqday 61 ayuu ka noqday. aan ku celiyo. haddaad u baahan tahay inaad lambarada iska bedesho, halkan ayaa taaban, right click ayaa odhan, setting ayaa tegi, waa kuwaan lambarada. iminka 61 kaas kale ayaan u baahanahay inaad lambarka iska bedelo. kalarka ayaan dul tegi, huruud ayaan ka dhiganayaa. adiga marka kalarka aad jeceshahay ka dhiganaya. adiga ayaa ka dhiganaya. saxana huruud ka dhigto kale ayaan u baahnaa. huruud baan ka dhigtay, ma ujeedaa? wuxuu ka noqday 61 ayuu ka noqday. aan ku celiyo. halkan aad kala soo bixi. hadduu suuqa up trend yahay halka ugu hooseysa ayaad kaga qaban. haddii aad weekska ka sawirtayna weekska ayaad geyn. halkaa sidaas ayaad u wadi. muxuu ka noqday iminka 61 ayuu ka noqday. waad arkaysaa. marka waa run ahaantii waa wax simple inaad sawirto.
oo wax aad iyo aad u fudud weeyaan. waxaan u maleynayaa inaad fahamtay sida Fibonacci mataqaana loo sawiro iyo sida chartka loo saarto. markaas ma rabo inuu noqdo wax aad u sii dheer. marka waxaad samayn kartaa Google-ka ayaad geli, waxaad ku qori Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ayay ku qori, sawirada halkaas ka eego, kabacdina adigu MT4 kaaga tag ama TradingView gaaga more practical samee and then gacantu way ku fadhiisan doontaa. marka intaas ayaan kusoo afmeerayaa xiisadeeni maanta. Assalaamu calaykum.